markan waxaan eegaynaa warbixintii ugu muhiimsaneyd saakay barnaamijkeena oo aan ku eegaynay yaa hadda fiican Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi. warbixintan waxaa soo diyaarisay majalada Ingiriiska ka soo baxda ee Mail, waxaana lagu faahfaahinayaa isbarbardhigga labada ciyaartooy Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo cidda hadda fiican. waxaana warbixinta ay muujinaysaa Ronaldo inuu yahay big game player, inuu yahay ciyaaryahan kulamada waaweyn wax gal ah, inuu yahay hogaamiye xitaa hogaamin kara koox iska yar oo caadi ah. Simeone ayaa sidaas sheegay. wuxuu yiri Simeone oo aan reer Argentina wuxuu yiri Ronaldo ayaa ku fiican dhanka in la hogaamiyo koox xitaa aan koox ahayn oo normal ah iska caadi ah. laakiin Messi haddii lagu dhex daro yiri sida kuwa hadda u ciyaar Argentina oo kale waa ku dhumaya. laakiin Ronaldo wuxuu yiri Simeone haddii lagu dhex daro koox iska galab xitaa wuxuu awoodaa in wax badan u sameeyo, inuu wax badan u qabto ayuu awoodaa. codayn ay samaysayna majalada Marca oo lagu codeeyay Ronaldo iyo Messi yaa koox normal hogaamin kara oo iska caadi iska galab waxa codka ugu badan qaatay Cristiano Ronaldo ayaa hogaamin kara koox aan laacibin badnayn oo iska caadiya. ninka hogaamin kara haddii lagu dhex diraxta waa isaga ay leeyihiin. horena Ferguson wuxuu yiri Ronaldo iyo Messi waxa fiican Ronaldo. sababta uu fiican yahay Ronaldo haddii xataa uu wigan u ciyaarayo ama koox yar u ciyaarayo hadrig buu u dhali karaa, laakiin Messi soo koox yar u ciyaarayo saddex lay ma dhali kara ayuu yiri. marka haddaba aanu u dhadhacno sababta sheegaysa hadda labadu nin inay kala fiican yihiin. isbuucan xitaa waxa hadlay Roy Keane oo hore u ahaan jiray ciyaartooy Manchester. wuxuu yiri daacadda markaan ka hadalno dhowrkii bilood u dambeeyay Ronaldo ayaa ka fiicnaa Leo Messi ayuu yiri. isbuucan Messi wuxuu wajahayaa caqabad dhanka qaab ciyaareedkiisii liitay ee koobka adduunka. wax walbana waxay mareen dhanka ayaa Cristiano Ronaldo. haddaba Ronaldo ayaa haddaba 4 gool ka dhaliyay koobka adduunka ee soconaya. 2 ciyaar uu ciyaaray halka Messi uu wali aanu taaban shabaqa oo aanu gool ka dhalin, xitaa xulkiisu hadda qatar ugu jiro inuu koobka adduunka ka haro. warbixintu waxay leedahay Ronaldo waa nin kulamada weyn ku fiican, waa nin habeen la malaysan kara wax qaba kara, habeen aad ay geeda isugu adag tahayna wax cimaamadi kara, yacni guusha keeni kara. laakiin Messi sida ma bay leeyihiin. warbixintu waxay ku soo qaadatay majalada 2017 Champions League quarter finalkiisii Ronaldo inuu 5 gool ka dhaliyo kooxda Bayern Munich labadii lug ee la ciyaaray. 5 gool inuu ka dhaliyo Bayern labadii kulan ee la ciyaaray. xitaa semi finalkii in uu hadri ka dhaliyo kooxda Atletico Madrid, xitaa ma dhaafino finalkii Juventus ayuu ka dhaliyay 2 gool. waxay ku leeyihiin waa nin kulmada muhiimka garanaya, waa nin kulmada muhiimka ah wax noqon kara. min semi final, min quarter final, min final oo la ciyaaray Munchen, Atletico iyo Juventus wuxuu ka dhaliyay meel 5 meel 3 iyo meel 2 ah, taas oo ka dhiganba inuu saddexdoodiba 10 gool ka gaaray. marka hadda koobka adduunka ee soconaya Ruushina Messi aad ay ugu jajaban tahay oo odagu aad ayaa sanadkan hadda koobka adduunka soconaya looga sareeyaa. haddaba warbixinta la soo qaaday ayaa waxaa la isku barbardhigayaa Leo Messi iyo Cristiano Ronaldo. nin walba tartamada waaweyn marka loo fiiriyo ayaa la isku barbardhigayaayo hadda tartanka ugu culus kubadda cagta waa Champions League. tartanka ugu culus ee kooxuhu waa Champions League. waa tartan uu ciyaaryahan walba ku qaadi karo jaa'isada caanka ee Ballon d'Or. waa tartanka kooxda qaada loo arkay inay tahay kooxda ugu awoodda badan qaaradda Yurub. sida daraadeed labadoodu marka waxaa laga xisaabinayaa Champions League tartankiisa kulamada waaweynka ah, knock-outka, semi-finalka, finalka maxay ka kala qabteen iyo groupka. ninka la yiraahdo Cristiano Ronaldo 78 kulan uu kulamada groupka Champions League ciyaaray wuxuu ka dhaliyay 60 gool, halka Messi 63 kulan uu ciyaaray groupyada Champions League isna ka dhaliyay 60 gool. halkaas way isaga mid yihiin. aan u dhacno wareegga 16 Ronaldo wuxuu ka dhaliyay kaliya wareegga 16 20 gool, 28 ciyaarood uu ciyaaray, halka Messi uu 26 kulan uu ciyaaray uu ka dhaliyay wareegga 16 24 gool. halkaasna Leo Messi ayaa ku roon, laakiin Messi wixii ka dambeeyay quarter finalka aad ayaa looga xirsareeyaa. yacni waa marka ay gaarto geeda dhamay markay gaarto rumay, yacni marka ay geeda u baahan tahay rag markay gaarto waa wixii ka dambeeya 16 wareegga 8 Champions League Leo Messi 20 kulan uu ciyaaray quarter finalka wuxuu ka dhaliyay kaliya 10 gool, halka Ronaldo 20 kulan uu ciyaaray wareegga 8 quarter finalka uu ka dhaliyay 3 gool.
وكلمة نك أوتك كوارتر فاينالك رونالدو 3 جول بو كدلي halka Messi uu ka dhaliyay kaliya 10 gool unba Messi 10 Ronaldo 23 semi finalka Ronaldo wuxuu ka dhaliyay 13 gool halka Messi uu ka dhaliyay kaliya 4 gool finalkuna waxa badan isla Cristiano Ronaldo 6 jeer oo final ciyaaray 4 gool buu ka dhaliyay halka Messi 3 jeer oo final ciyaarina uu 2 gool uu ka dhaliyay marka waxa dareemaysaa sida warbixintu ay leedahay mail ay qortay Lionel Messi marka ay tagto yaa wax qaba kara marka ay geeda ay taagan tahay meel ka daray ah oo ay aad u adag tahay xaaladdu yaa wax qaba kara marka la yiraahdo waxay warbixintu leedahay Ronaldo ayaa ka fiican Messi finalka Ronaldo 4 gool ayuu dhaliyay halka Leo Messi uu dhaliyay 2 gool wareegga sama finalka Ronaldo 13 gool buu dhaliyay halka Messi sama finalka uu dhaliyay 4 gool la 3 gool buu dhaliyay wareegga 8 Ronaldo kana wuxuu dhaliyay 10 gool Ronaldo ayaa ka fiican ayaa la leeyahay Messi marka la ciyaarayo kulamada muhiimka ah ee loo baahan yahay ciyaartoyga habeenka loo baahan yahay Ronaldo kaga qatarsan baa leeyahay Messi Leo baryahan wax badan ayuu luminayaa oo taageera